xuska dhalashada nabi maxamed nabadgeliya naxariis korkiisa ahaatee ayaa maanta si weyn looga xusay magaalada Lusaka ee caasimadda Zambia. kumanaan muslimiin oo kala jinsiyada ayaa maanta waxay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee Lusaka iyagoo muujinaya shacair ka turjumaysa sida ay ugu faraxsan yihiin xuska dhalashada nabi maxamed nabadgeliya naxariis korkiisa ahaatee. abbaara 9 aroornimo ee Saaka ayaa muslimiintu waxay isugu soo urureen masaajidka jaamaca ee bartamaha magaalada kadibna waxay socod luga ku soo mareen qaybo muhiim oo kamid ah magaalada waxaana ciidamada wadooyinka ee traafikadu ay u xireen qaybo kamid ah wadooyinka ay marayaan dadka muslimiinta si ay halkaasi uga dhicin shirar khasaare keeni kara. isu soo baxa maanta ayaa waxa qayb weyn ka qaatay Soomaalida ku nool Zambia oo ah qowmiyadda labaad ee ugu badan muslimiinta ku nool Zambia. waxaana markii uu soo dhamaaday socodku ay jaaliyadda Soomaaliyeed qada u sameeyeen qaar kamid ah muslimiintii u dabaaldegaysay dhalashada nabi maxamed nabadgeliya naxariis korkiisa ahaatee. ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay qaar kamid ah culimada Soomaaliyeed ee Zambia waxayna si weyn ugu dheeraadeen taariikhdii wanaagsaneyd ee nabi maxamed nabadgeliya naxariis korkiisa ahaatee. isaga weyneynay isaga celebration u sameynay nabiga isaga xusahayay muxuu ku xusahayay uu soomayay maalin kasta istiina uu soomayay waa la weydiiyay maxaad u soomaysaa baa wuxuu yiri uu soomayaa maalinkaasi waa maalinkii la dhalay macnaha maxay marka uu xusaya maalinkii la dhalay oo ilaahay uu adduunyada soo keenay wujuud ka dhigay nicmatul wujuud Allah subhanahu wa ta'ala uu sameeyay shukran lillahi subhanahu wa ta'ala uu shukrinayo yusomaya nabi alayhi salatu wasalaam markuu magaalada Madiina yimid ee Makka ka soo hijrooday wuxuu arkay reerka oo reer Madiina oo yahuudi oo soomayo wuxuu yiri maxaad u soomaysaan waxay dhaheen maalinka asaga waa maalinkii ilaahay nicmadiisa ay ku degtay nabi Muuse oo laga badbaadiyay badi iyo cadawgiisi nabi alayhi salatu wasalaam annaga ayaa idin ka mudan Muuse inaan weyneyno wuxuu amray asxaabtiisa oo dhan in la soomo maalinka asaga يوم العاشوراء وينين لو وينين هي أحداث أسجى شكر الله شكرنا النبي موسى إنه إله سبحانه وتعالى وكبد بهذه وإله سبحانه وتعالى وخير كيسي وينين لو وينين هي النبي عليه الصلاة والسلام مسلم هذا الدنيا الوطن ظلمي يتبعتني كجرتي قال لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فديس وكبد بهذه هنون كرسمي إلا وينين يوم مشروعيات كانت في أحداث هالكاسان كجرنا هنا وكذا عيسى المدى سوق مقابسي iyaguna taamka iyo geliyay effortiga Ilaahay ka siiyo ajab wadankeena wax ka warhaysaano xaflad badan baa ka dhacay meel kastaba dadkii maaragtay waa isku soo hiloobeen islaamku waa hal laba maaha hal ummad baan nahay waxaan u maleynayaa culimada ahlu sunna oo jamaaca hadda oo hawshan qabatay baa nagu filan Soomaali inay maaragtay wada qabsan karto ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد عليك يا رسولي سلام الله عليك سلام الله عليك عيد مصداهر يونيفرسال تي في لوساكا يا مصطفى سلامي